السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta mawduucaynu wuxuu ku saabsan yahay sababaha cuncunka qowlaha iyo daawada hormoon. Video-kani saameyn aad u ballaaran ayuu u yeeshay, wuxuuna iga cusbay waxyaalo fara badan aan rumaysnayn inaan joojiyo. Waxaa ku jiray kommentiyo qaar oo kommentiyo dhiig ku jiro, marka asxaabta kommentiyada soo bixinaysa nidaya. Su'aal walaal, waxaan wataa su'aal caafimaad. Badanaa cuncunka ku yimaada xiniinyaha ragga maxaa keena, maxaase la iskaga daaweeyaa? Waxaan badanaa isku arkaa xilliyada kulaylaha cuncun xagga qowlaha. Markaan isku dayo inaan xoqitaan u isticmaalo, gadaal waxaan ka dareemaa xanuun xagga maqaarka ah. Marka su'aashaasi ha la iga soo jawaabo khubarada caafimaadka ee daruurna waan salaamayaa. Badan cudurka ka dhasha is-rogista jirka, siiba dadka cayilan oo la dhaho Carabiga ilaa xadkaaka Ingiriiskana chafing, ayaa keena arrimahan. Caadi ahaan xiniinyaha waa meel kulul oo dhidid leh badan. Marka nadaafadda aan lagu dadaalin ama qofka uu xirto kastuumo muddo badan, waxaa laga yaabaa inay keento cuncun ama nabro iyo finan ama kasoo bax. Taasna rag badan ayaa ka sheegto. Waxaa lagu daaweyn karaa sida soo socota: qofka inuu ku dadaalo inay meesha nadiif ahaato, sidoo kalena inay qalanaato. Taas waxay kuu suurto gelinaysaa qofka inuu xirto dhar waasac ah oo aan dhab ahayn. Dharka ciriiriga ah meesha ayuu kuleeliyaa, siiba qofka marka uu socdo ama shaqo ku jiro ama laga yaabo inuu dhidido. Sidoo kale, qofka inuu ka fogaado wax kasta xasaasiyad leh oo maqaarka hurin karo. Waxaa habboon qofka inuu mariyo waxyaalaha ka reebaya jirka dhididka. Caadi ahaan, cuncunka qowlaha maaha cudur halis ah, laakiin dhib ayuu keenayaa markuu siyaado. Sidoo kale, waa inaad ka fogaataa walwalka badan, waayo wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena cuncunka meelahaas. Waxaa la marin karaa boomaato oo meesha ka qaadaysa cuncunka oo loo yaqaan Dactrin cream. Marka sababo badan ayaa keenayo, waxaana ugu muhiimsan nadaafadda. Marka muuqaalkeena halkaas ayuu inoo egyahay. Assalaamu calaykum.